safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa ku tilmaamay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay hogaamiye qaran lehna aragti isla markaana yaqaan sida loo hogaamiyo koox ayna ka go'an tahay inuu mustaqbal wanaagsan u horseedo Soomaaliya. hadalkan ayaa Larry Andre waxa uu ku sheegay waraysi gaar ah oo uu siiyay idaacadda VOA kadib markii uu laba jeer la kulmay madaxweynaha cusub tan iyo intii la doortay. So I had the honor of meeting President Hassan Sheikh when he was candidate Hassan Sheikh. We had a good discussion. waxa uu yidhi waxaa sharaf ii ahayd inaan la kulmay madaxweyne xasan sheekh markii uu ahaa murashaxa waxaan munaaqasho wanaagsan ku yeelanay safaaradda waxaana uu iga warramay aragtidiisa waddanka iyo waxa uu doonayo inuu hanto isagoo matalaya shacabka Soomaaliyeed. muhiimad ayuu siinayay ayuu yidhi in wadar ogol uu wax ku maamulo iyo in xiriir xooggan oo najaxa oo dhinacyadu ay ka wada faa'iidaystaan oo dhex maro dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah si ay wadajir horumar ugu sameeyaan haddii ay tahay dhinaca amniga haddii ay tahay wax ka qabashada qalalaasahan daran ee bini'aadminimo ee abaartu sababtay haddii ay tahay sii wadista hawshii madaxweyne Farmaajo ka qabtay deyn cafinta iyo xiriirka hay'adaha dhaqaale caalamiga ah iyo sii wadista hanaankaasi si ay mashiin ugu noqoto kobaca dhaqaale. And it means continuing all of the progress on the governance side, finishing the constitution. waxay sidoo kale ka dhigan tahay ayuu yidhi sii wadista dhammaan wixii horumar ah ee laga sameeyey dhinaca maamulka dhammaystirka dastuurka in si hufan loo qeexo federaalka Soomaaliya marka ay noqoto doorka iyo mas'uuliyadaha gobollada iyo dowladda federaalka. waxa uu si bayaansan uga hadlay ayuu yidhi sida uu doonayo inuu wax ku maamulo qaab la isla wada ogol yahay iyo sida uu doonayo inuu hagaajiyo nolosha dadka Soomaaliyeed. And that was candidate Hassan Sheikh. So since the election, I've been able to see him twice. And he's now giving greater details about his plans. Of course, he's in the government formation stage, thinking about taasi waxay ahayd ayuu yidhi markii uu ahaa murashaxa ilaa intii doorashadu dhacdayna waxaan arkay ayuu yidhi laba jeer waxaana uu hadda faahfaahin dheeraada ka bixinayaa qorshayaashiisa. dabcan waxa uu ku jira ayuu yidhi marxaladdii dowlad dhisidda isagoo ka fikiraya dadkii ku soo biiri lahaa si ay nolol fiican ugu abuuraan dhammaan Soomaalida. waxaan dhahnaa ayuu yidhi xulashada shaqaaluhu waa siyaasad waxaad samaynaysaa go'aan siyaasadeed. hadda taas ayuu diiradda saarayaa laakiin waan la dhacay ayuu yidhi inuu yahay hogaamiye qaran oo leh khibrad leh aragti yaqaana sida koox loo hogaamiyo kuna dhiiran inuu mustaqbal wanaagsan gaarsiiyo dhammaan dadka Soomaalida. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre oo marka uu waraysigan bixinaya ku sugnaa magaalada Muqdisho waxaa kaloo aan weydiiyey kalsoonida uu qaba inta ay leegtahay in madaxweynaha cusub uu waddanka isu keeni karo gaar ahaan xiriirka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo in dib u heshiisiin uu waddanka ka hirgeliyo. It's frankly very early in the period. Everything that we have seen and heard so far is very positive. I also want to say having the parliament waxa uu yidhi dhab ahaan waa xilli bilow ah wax kastoo aan aragnay ama maqalay ilaa haatan waa wax wanaagsan. waxaa kaloo aan dhihi lahaa ayuu yidhi inuu baarlamaankii jiro oo qaybtii sharci dejintu ay soo laabat waxayna muhiim u tahay horumarka. waa baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya loona shaqeeyo hanaan ixtiraamaya doorka sharci dejinta. hawlo badan oo sharci dejin oo sugaya in la eego ayaa jira ayuu yidhi. waxaan la kulmay ayuu yidhi gudoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Aadan Madoobe isaga laftiisana waan la dhacay ayuu yidhi. sidoo kale waa hogaamiyaal khibrad leh oo yaqaana jihada ay waddanka u kaxaynayaan oo ay ka hadleen xilliga ay murashaxiinta ahaayeen ayna haatan doorteen wakiilada ummadda Soomaaliyeed doorashadii dadbanayd. dhammaan waa sababo lagu niyad samaado laakiin waan arkaynaa waxa dhaca marka dowladda la sameeyo waana arkaynaa marka ay dowladdaasi bilowdo inay waxqabad ula timaado ummadda Soomaaliyeed. safiirka Mareykanka Larry Andre waxaa kaloo aan weydiiyey sida ay dowladda Mareykanka ula shaqayn doonto maamulka cusub ee xukunka qabanaya iyo haddii ay jiraan tallaabooyin khaas ah oo ay ka wada shaqaynayaan. Certainly we will be working with both the executive branch of government with the legislative branch of government waxa uu yidhi dhab ahaan waxaan la shaqayn doonaa laanta fulinta ee dowladda iyo laanta sharci dejinta xiriirro in lala unko baarlamaanka cusub maadaama in badan oo ka mid ah ay cusub yihiin oo aysan xilkaasi hore u soo qaban sii wadista xiriirka heer goboleed. taasi si gaar ah ayaan ugala hadlay ayuu yidhi madaxweynaha qaab dhismeedka dowladda isaguna ixtiraam badan ayuu u hayaa ayuu yidhi gobollada. waxaana u jeedaa muhiimadda ay leedahay inay wada shaqeeyaan dowladda federaalka iyo gobollada. waxaan sidoo kale madaxweynaha siiyey ayuu yidhi soo jeedimo iyo waxyaabahaan dhinaceedna mudnaanta siinayno
ugu horrayn isaga ayaan weydiiyey ayuu yidhi madaxweynaha waxyaabaha uu mudnaanta siinayo ka hor intii aanan ka hadlin mudnaanteedna dhowr ka mid ah qodobadii liiska iigu jira waxaan ka maqlay ayuu yidhi madaxweynaha ka hor inta aanan xusin tusaale ahaan qodob waxa uu ahaa ayuu yidhi in madaxweynuhu u magacaabo qof xiriiriya dadaalada wax looga qabanayo qalalaasaha bani'aadminimo ee meesha xun maraya taas ayaan doonayay inaan weydiiyo laakiin waxa uu ii sheegay inuu sidaasi damacsan yahay ka hor intii aanan uba sheegin haatan qofkaasi waa la magacaabay sidaasi darteed waxaan u jeedaa ayuu yidhi waxqabad gaar ahaan waxqabadka dhinaca qalalaasaha bani'aadminimo ee daran oo u baahan in si degdeg ah wax looga qabto waxaan sidoo kale ka wada hadalay ayuu yidhi dhinacyo kale sida dhinaca amniga kobac dhaqaale oo loo wada dhan yahay ka jawaabista arrimaha bani'aadminimada dhammaystirka dastuurka xiriir wanaagsan oo natiijo leh oo ay yeeshaan gobollada iyo dowladda dhexe aad baanu la dhacay ayuu yidhi aragtida madaxweynaha iyo qorshayaashiisa khaaska ah ee uu taasi ku hananayo I'm very impressed with the president's vision and his specific plans of achieving that vision. Dowladda Maraykanku waxay ka mid tahay dowladaha xiriirka dhow la leh Soomaaliya. Muddo xileedkii hore ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dowladda Maraykanku ay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladda Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dowladda Soomaaliya 1991. Ambassador Larry Andre waxaan weydiiyey sida uu qeexi lahaa hadafka dowladda Maraykanka ee Soomaaliya. I can tell you that very clearly as I communicated to His Excellency the President and I had the same communication with the Speaker of the Lower House. Increased security. waxa uu yidhi waan kuu sheegi karaa taasi sida aan la wadaagay madaxweynaha iyo guddoomiyaha aqalka hoose waxa weeye ayuu yidhi amniga Maraykanka iyo kan Soomaaliya oo la sii xoojiyo taasi oo gaar ahaan macnaheedu yahay kordhinta wada shaqaynta amniga ee ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamka in ciidanka Soomaaliya laga caawiyo inay Soomaaliya ka difaacaan weerarada argagixisada iyo dambiyada gacanka hadalka wata loogana sii gudbo baahida dhinaca bani'aadamka ee Soomaaliya waxaa socda ayuu yidhi qalalaase taariikhi ah hadafkeennu waa in la taageero ayuu yidhi soo kabasho iyo kobac loo wada dhan yahay taasi oo ka dhigan in la bixiyo taageero nafadbaadin ah iyadoo dhinaca kale la dhisayo awoodda dib u soo kabashada waxaan kuu sheegayaa ayuu yidhi wadahadalladii aan la yeelanay kooxda madaxweynaha ee ku saabsanaa dhisidda dib u soo kabashada ee waxa aan qabanno dareen gaar ah ayaa loo leeyahay annaguna waan taageeraynaa si aysan Soomaaliya mar walba ugu nuglaanin dhibaatooyinka dawladda uga imanaya dibadda ha ahaadaan weeraro argagixiso ah ama abaarta sidoo kale Ambassador Larry Andre waxa uu sheegay inay taageerayaan dib u habeyn horseeda in si buuxda Soomaaliya looga cafiyo deymaha waxaa kaloo hadafka Maraykanka ka mid ah ayuu yidhi inay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada kala shaqeeyaan kobcinta nabadda iyadoo la hagaajinayo maamul wanaag waxtar leh iyo bixinta adeegyada dadweynaha sida waxbarashada iyo caafimaadka kobcinta maamulka dimuqraadiyadda iyadoo loo marayo dib u heshiisiin iyo dhammaystirka dastuurka dib u heshiisiinta markaan ka hadlayana waxaa ku jira Somaliland ayuu yidhi safiirka Maraykanka ee Soomaaliya Larry Andre And when I mentioned reconciliation, that includes reconciliation with Somaliland. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhawaan sheegay in waxyaabaha uu mudnaanta siinayo 100 maalmood ee ugu horeysa ay ka mid tahay amniga. Larry Andre waxaan weydiiyey in maadaama madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu amray in dib loogu soo celiyo Soomaaliya ciidamada Maraykanka inuu sharxo waxa ay ciidankaasi qaban doonaan iyo sida lagu hanan karo ujeedooyinka amni iyadoo lala shaqaynayo ciidamada Soomaaliya. Well, you just said it. In collaboration with Somali forces, but also in collaboration with the African Union forces, we're looking. Adiga ayaaba sheegay ayuu yidhi waa in iskaashi lala sameeyo ciidamada Soomaaliya iyo sidoo kale in iskaashi lala sameeyo ciidamada midowga Afrika waxa uu sheegay Ambassador Larry Andre in sidii taasi loo fulin lahaa ay ka wada hadlayaan militariga Maraykanka iyo hoggaanka Soomaaliya waxa uu sheegay inuusan faahfaahin badan ka bixin karin amarka madaxweynaha Maraykanka ee ah in tiro ciidamada Maraykanka la keeno Soomaaliya iyadoo la raacayo ansixinta mas'uuliyiinta Soomaalida. That's why I can't give you a lot of details right now because it is still being worked out in discussions with the Somali authorities. waxa uu yidhi waa sababta aanan xilligan faahfaahin badan uga bixin karin sababtoo ah weli waa laga shaqaynayaa wadahadallada lala leeyahay mas'uuliyiinta Soomaalida laakiin waad xustay ayuu yidhi tababarka oo ah qayb muhiim oo ka mid ah hawsha iyo in la taageero tallaabooyin guluf ah oo ay qaadaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika
si looga xoreeyo soomaalida ku hoos nool cadaadiska kooxda argagixisada ah. waxaa kaloo aan safiirka Maraykanka Larry Andre weydiiyey in dalka ay joogeen ciidamada midowga Afrika in ka badan 15 sano, kuwa Maraykankuna ay haatan sannado caawinayaan dowladda Soomaaliya, caawintaas oo ay ku jireen weerar dhinaca cirka ah balse aysan guulaysan. waxaan weydiiyey inuu jiro qaab ka duwan oo lagu waajihi karo xaaladda iyo khatarta ka imanaysa ururka Al-Shabaab. The Somali people and the Somali security forces must lead the fight of freeing their country and protecting their people. waxa uu yidhi dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada amniga Soomaaliya waa inay hoggaan ka ahaadaan dagaalka lagu xoreynayo dalkooda laguna difaacayo dadkooda. saaxiibada dibadda iyo saaxiibada caalamka ee dhinaca amnigu way caawin karaan, laakiin dagaalka kuma guulaysanayaan xoogag caalami ah. dagaalka waxaa ku guulaysanaya oo waddanka xoreynaya dadka difaacaya, waddankana amni ka dhigaya askartiisa, ciidamadiisa amniga, booliiska. halkan waxaan u joognaa inaan gacan siino. We are here to help